إلهي وحن كبريا إلهي إنه أنت يكسر في عن إذن وافجيا آدي أضمها سنتين سلام الله عليكم. إن شاء الله كلنا من أبي فإذا كنا يوانا لو تجيبين ينقل حصول بتاع وها أنتم يا دكتور لما كوبي كارو إلهي سيد الله سبحانه وتعالى وحن اسكوات كأننا نبعين كاس الله إن محل ذا لو مهنقه إلهي سبحانه وتعالى لقبقه مالكست ولا جود مرهدي الله كعبسي له له أمورها ويسهلنا يعني تن شخصية تن محل عائلة تن محل جود أنت وحويان ويهجا إن شاء الله محاج إلهي سبحانه وتعالى وعليه وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا روحي الله كبق أموره ويسهلنا يعني أمورها ولا سهل وحن اسكوات كأن إلهي سبحانه وتعالى إن لقبقه أنت سبحانه دافي waxaan aad ugu mahadnaqaynaa soo dhaweynaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Sir Cabdiwaaxid waxaan soo dhaweynaa oo kale safiirka Suudaan meesha uu joogo waxaan soo dhaweynaa ardayda waalidiinta martida kale ardayda warbaahinta iyo in alle inta maxaa leeyahay barnaamijkan ku soo biirtay waa kulligiin waxaan idin leenahay soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin warkayga aniga waa iska gaaban yahay ma dheero hadda ka horna warar badan ayaan sii deynay war badan waxa ma taro waxaan aniga leeyahay ummadda war badan uma baahna wax qabad ay u baahan tahay anaga mar wasaaradda haddaan nahay warka waa iska yareynay wax qabadaan u gudubnay wax qabadkan waxaan rabnaa inaad nala aragtaan aniga wasaaraddan madax ka ahay waxaa iga ballan aan go'aansaday ilaahay subxaanahu wa tacaala in looga baqa mas'uuliyadda aan hayno wax alla wixii aan qaban karnaan waxba reeban cadaalad in la falo wax qabad muuqda in degdeg loo arko firfircooni maxaa la yidhaha qofka muslimka ayaa lagu ogyahay in la firfircoonaado aniga waa ii jeedaan xoog badan iyo hilib badan igama muuqdo laakiin dagaalaan diyaar u ahay dagaal inaan shaydaan iyo waxa waxa cadaalad darro wada oo dhan inaan la dagaalamo ayaan diyaar u ahay dagaal badan aan galnay sidii aan shaqada u bilaabnay ra'iisul wasaaraha waxa weeyaan runtii ragga safka hore hadda ugu jira maxaa la yidhaha barnaamijkaas aad ay ugu mahadsan yihiin dawladda aad ay noo dhiirigelisay barnaamijkaas waxaa la cadaalad fala madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ra'iisul ku-xigeenka wasiirada kulli si aan caadi ahayn ay u taageereen haddaan ayaga ayna taageerin barnaamijkan ma fuleen إلا وزير وزارة كتر ويان وزير مدحوين أو حكم ويان وزير وزارة أو حكم ويان هدي أي محل برنامج كاسونتي تاجر أنا كجيسن وأنا كان أنا جارم وزير كدوحيس داخلها الله جع سنة أصلا ماشي جو يا ماشي لو كلا تجمع مركا أنا إن شاء الله واحد دولتها أنا جوعان ذاتك صوماليات إن لو عدالة فلو وحمو غدن إن لو قبت إن شاء الله هبا يرادان ودكتي دب أمن در أياجرو امتحان إن لقاده ما سهلنا أنا وحن قوان سنة إن امتحان لقاده امتحان كاس إن لو كلبه مرغاتي إذن كاكا امتحان كلقاده هبكو ودعي أنا كوديران معي ورباهنت ويجوغان حقاس أوجيستان أرددها ورستان هبكو إيه وحودعي أنا امتحان قوان سنة وح الله وحي ماذا أو داق وحبرشة إن نيس كاس لساره عد الله عدي قادته محال إذا إنساس يكبح أنا لقد دبحر waxaan kaloo go'aansanay shahaado qaldan inaan imtixaan inaan wax lagu qaban oo ardayda madaarista waa inay tagaanay waxbarashada ku laabtaan meelaha shahaadooyinka qaldan laga soo qaato waxa ardayga uga fil mar haddii uu dadaalo oo cilmi yeesho wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda tacliinta sare way wada hadleen way iska kaashadeen arrintaas wasaaradda waxbarashada diyaar weeyaan iyo barbaarinta barnaamijyo badan ay wadaa ardayga wax yaqaan in la imtixaano oo shahaado sidaas ku qaato meesha uu baahan lahaa inuu intuu meelaha tago shahaado aan jirin soo qaato waxa way shahaado sax u qaadan karo madaaris inuu waqti badan dhex fadhiin uma baahan ruux wax yaqaan marka imtixaanaan go'aansanay waana ku dhaqaaqnay shahaado qaldan inaan la aqbalnay aan go'aansanay waa ku dhaqaaqnay mid awood leh iyo midaan awood lahayn in wax loo sim ayaan ku talagalnay waa ku dhaqaaqnay wax alla wixii ka yimaadana diyaar ayaan u nahay insha Allah waxaan idinka rabnaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka sida uu sheegay imtixaanka habka uu dhacay waad aragteen waa la cadaalad falay dad badan ka shaqeeyay jazaahumullahu khayr waxaan rabaa inaan ku mahadnaqo waxaa jira guddi manxooyinka maamulo waxaa jira macallimiin imtixaanada saxo
waxaa jira wasaaradda ka shaqeeya oo habeenii maalin shaqeeyo waxaad ogtihiin oo kale dawladda lacag ma hesho miisaaniyadna ma taal meeshii 6 bilood raggaas waxay ku shaqeeyaan lacag la'aan habeenkii 8 saac ayay qaarkood ku gaaraan shaqada intaas waxa weeyaan alla dartii in loo shaqeeyo cidna ammaan iyo asxaan aan laga rabin annaga insha allah waxaad nagu ogtihiin in wixii alla uu noo dhiibay habka alla uu rabo in loo maamulo aan laga leexleex waxaad nagu ogtihiin dadkaas in la simo mid qabiil xoog la ka yimid mid qabiil maxaa la yaraysta ka yimid mid beel hubaysan ka yimid mid aan beel hubaysan mid ka socda beel aan hubaysnaan ilaahi subxaanahu wa tacaala ummadiisaas ruuxa ugu taqwada badan ayaa ugu karaamo badan inna akramakum cindallahi atqaakum alla saas u qiimeeya annagana insha allah saasaan ilaahi subxaanahu wa tacaala sidaas dadka u qiimeeya ayaan rabnaa dadkaas in loo cadaalad falo oo la yidhaahdo imtixaanka ruuxa ku guulaysta ayaa iska leh ruux kale ma laha ruux ka awood badan ma leh marka waa idin soo dhawaynaynaa waxaan u hambaleynaynaa ardayda dadaashay oo caddeeyey in maxaa la yidhaha runtii waxbarashadooda si ay ugu soo dadaalaan way cadda waxaan kaloo u mahadnaqaynaa waalidka ardayda soo koriyey oo sidaas juhdi ku soo bixiyo runtii soo gaarsiiyey halkaas waxaan ka codsanaynaa oo runtii ardayda ku adkaynaynaa waalidkood inay u naxariistaan islaamka waxaa la yidhaha sida ku cad waalidka in loo naxariisto waxbarashadoodana ay ku dadaalaan dalkana idinkaa u maqan annaga wax alle waxaan qaban karno waa qabannay dalkaas kuraastiisa idinkaa ku fadhiistay kursigaas yoona khasaarin qabiil kuma siin cid kale kuma siin laaluush laguma bixin lacag la'aan aad ku heshay kursigaas inuun khasaarna lagaa rabaa marka waxaa soo dhammaysta aad soo laaban intii aad maqan tahayna ummaddaas magaceed inaad hadlaynin ummaddan dhibaato aad u geysan qabaa'ilay u samaysan yihiin ardayda hadda meelaha aad tegi doontaan qabiil iyo gobol waxay u samaysan yihiin haddaa ku biirtaana waxa waaye garabkiin allah galo haddii dad toosan oo muslimiin ahoo maxaa la yidhahda shalay wixii ay ku yimaadeen waxay cadaalad ay ahayd iyo sinaan iyo muslimnimo sidaasaa laydinka rabaa meelaha aad tagtaanne tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan qabaa'il iyo gobolle iyo qayb kale iyo hagelina istoosiya dadaala ra-iisul wasaaraha siduu sheegay ruuxu damiinna ma jiro aniga waxbarashada waqti badanaa hadda ku jira jaamacadana waa joogay damiin wax la yidhahda ma jiro dadka way kala dadaal badan yihiin ruuxii horey aabbihiis ugu soo dadaalay iyo hooyadiis iyo madaan lagu dadaalan dabcan waxa waaye way kala hooseeyaan oo ruux haddii hadda orod uu bilaabo maalin kasta halkii ex control maxaa la yidhaha yani afgooya haddii u ordo maalin kasta waxa weeye orodkuu baran ruux wuuna la qabsan maayo ruux iska jiifo laakiin weligiis aan ordi la meesha ord wadnaha fadhiisan marka dadka hore u soo dadaalay iyo dadka aan dadaalin isku mid maaha laakiin waa laga daba tegi karaa ruuxii maxaa la yidhaha mar hadduu dadaalo waa soo celin karaa dadaalaa la isku dhaafay waxaana ka horreeya ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiis iyo alle in la tala saarto mar haddii dariiqa alle laga leexdo dadaalkaada waxba tari maayo waa lumay oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka maxaa la yidhaha yani xumaanta sameeya xun juhdigood ma barakeeyo waxaa muhiim ah dunuubta in la iska ilaaliyo tawfiiq la'aanay leeyihin dembiga waxyaalaha qofka u geyso waxaa ka mid ah taladaa ka lumayso tala fiican ma gaaraayo allaha laga baqo subxaana wa tacaala dunuubta ha la iska ilaaliyo shaydaanka ha laga fogaado intii naas haddii aad baxdaanoo si wanaagsan aad wax u barataan ummadda aad la joogtaan waxaa la yidhaha hab islaam kula macaamishaan markaad soo laabataanna cadaalad fashaan dalkan wax badan u maqan waana hagaagay insha allah marka jazaakum allah khayran mar kale kulligiin waa idinku mahadnaqaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa maaragtay in sidii hore loo sheegay safarkiina waxaa la yidhaha runtii si wanaagsan oo sahlan ilaahay uu ku dhamay subxaana wa tacaala ilaa diyaaradda aan idin saarna waa idinla soconaynaa magaalada haddii lagaa soo qabto waxa weeyaan oo meelaha lagula galo booskaada la iibsanayo bardo booska annagaa gacanta ku hayna marka laakiin diyaaradda aan idin saarna insha allah waana dadaalaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waa laydin sheegi doonaa macluumaadka qolada diyaaradaha waa la xiriirnay axadda soo socoto ayaan isku daynay suuragal halka way ka naqatay laakiin diyaaraddii maxaa la yani xagga laga sii raaci lahay ayaa kansalan waa la kansalay waa la joojiyey ciidda daraaddeed waxay noqonaysaa usbuuca ku xiga hadduu ilaah yidhaahdo waa laydin soo sheegi doonaa qarashka waa la soo ogaaday waa la sheegay wasaaradda idin sheegi doonta hadduu ilaah yidhaahdo mar kale ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadnaqaynaa fursaddaa na siiyey muslimiin naga dhigay martida waa ku mahadnaqaynaa ardada waa u hambalyaynaa waalidkana waa ku mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr warbaahintana aaradan waxay ku leeyihiin dadka scholarship
قولي حاليا من حرة إن شاء الله هو وديارنا سوق لا معنا دقلا هو وقت الحرب لغادا واحد الأمارة يعني الأمارة كتقول دواء أو كيستي دب بدن يدق الله بدن يجيران وإنت حاليا ذلك دب كسر ما أرتي دميت أبي قدني وين wax aan sugnaan sheegay kale xalli wasaaradda in sha Allah waqtiga way furan shaqaalaha waa diyaar صور ما عامة لو ولا قال عصرينا إن شاء الله تعالى لا ترتيب هذا استاذ نورياش الأفضل Train. That's what I said to them. And how we are very much happy. I visited Sudan 3 times during the TNC. I was the Minister for Agriculture. I was familiar with Muhammad. طبعا جعلنا ما دام يصبر بوس كنسي